dhibane Aamina Maxamuud Fardaale waa gabar Soomaaliyeed oo muddo 20 sano ah ku xanuunsaneyd baadiyaha waxa saaka geed ay ku xidhneed ku booqday wariye Zakariya Maxamed Ciise Wadani isagoona ummadda islaamka u soo bandhigay in gabadhaasi ay u baahan tahay caawinaad maadaama ay ka soo jeedo qoys sabool ah oo aan haysan wax hanti ah. Aamina ayaa qorraxda, dabaysha, qabowga, kaneecada iyo bahalaha kaleba ay isu bedelaan maadaama ay geed cidla ah ku xiran tahay. maanta waxaan ku suganahay baadiye lagu magacaabo Fagxagar oo ilaa 3-4 saac u jira magaalada Woodwood. waxaan booqanay oo aan soo booqanay dhibane Soomaaliyeed oo walaasheena laguna magacaabo Aamina Maxamuud Fardaale. Aamina waxa haya xanuunka dhimirka ah waxay xanuunsanaysay muddo ku dhawaad 20 sanadood ah iyadoo 15 jir ah ayuu xanuunkaasi u asiibay sida ay ii sheegeen eheladeeda iyo qoyskeedu. muddada inta leeg baadiyay ku noolayd oo ay ku xanuunsanaysay intaas ay la soo silcayeen oo kula soo rafaadayeen. waa qoys tan yar oo wax hanti oo badan aan haysan waxoogaa xayn yar oo adhi ayaa u xaraysan. waa qof dumar ah oo runtii waa cawro. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii 3 dumara koriya oo kafaalo qaada jannada ayuu gelaya. ummadda islaamka ah ee Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay walaasheen aan soo caawino garabna soo siino sidii aan dhakhtar u geyn lahayn inaan falowgeeda aan u qabano in aan hoy baadiyahan iyo aydan runtii geedka cidlada bay ku xiran tahay. waxaa buulka yar ee reerku gelaya looga baqay inay dadka layso oo gudmaha ay madaxa kaga goyso oo dadka ay layso. marka geedka cidlada bay iskaga xidheen iyagoo naftooda uga baqayo oo naftooda ay badbaado ay uga dhiganayaan. geedka cidlada baa dhaxanta iyo kaneecada iyo qorraxduba ay isaga dambeeyaan. habeenkiina dhaxanta ugu timaada iyo kaneecada iyo bahalaha kale maalintiina cadceeda ugu imanaysa. dadka inakuna waxaan ku jirnaa guryo iyo hooyo iyo wax laga yaabaa qof kastaaba inuu dhaqaale iyo hanti ku xisaabtamayo. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu eegayaa waxa weeye waa kuwa masaakiinta ah ee dhirta hoostooda ku xiran. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kuwa gudaha jooga sunna xariista markaas Allah subhanahu wa ta'ala idin xariisanaya. aakhiro qof kastaaba marka uu dhinto wuxuu la tagayaa waa amalkiisa waxa ka horeeyay uu la baxo ayuu la tagayaa. marka walaalayaal ummadda muxsiniinta ah ee sadaqaadka jecel inay dadkooda inay aakhiro ay wax isaga horeysiyaan waxaan ugu baaqayaa dhibanahaas cawrada ah runtii qofkii dee muuqaalka arkaa ama qofka leef ugu yimaada meesha ay ku xiran tahay wargagaxaya. waxaa laga yaabaa inaad ilmahaaga yar ama dibadda jooga ama gudaha joogo inaad ka naxdo haddii hargab yar ku dhaco oo ay dhakhtarada u tagno oo aynu hadiiba koreeyay aad ka naxayso walaalkaaga muxsinka ah na wuxuu la mid yahay ilmahaaga kale la mid yahay. marka waxaan leenahay awal waxaan aan soo bandhigi jirnay waxay ahaayeen rag laakiin dee qayla dhaantu maanta waxay nagu soo gaadhay in dee dumarkuna oo weliba cawro ah oo weliba hadiiba koreeyay nin kastaaba wuxuu jecel yahay walaashii ama in adeertii inay hagaagsanaato oo miyir qabto oo ay qoys dhisato oo reer ay leedahay oo meel ay degan tahay. marka walaasheenaas qoyskooduna ay awoodi waayeen inay kafaalo qaadaan oo qoys tan yara oo abaarihii ay soo jiireen oo hadiiba koleeyahay hantidoodu ay iska yar tahay
oo markii hore aan hanti badan haysan bay gabadhan ay ka dhalatay waxaan ummadda islaamka ah ee walaalaha ee muxsiniinta ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri muslimiintu waa hal jidh haddii mid xanuusto dhammaan inta kale waa xanuunsanaysa marka walaalayaal waxaan Allah subhanahu wa ta'ala dartii idinka codsanayaa inaad qoyskaas danyarta aad soo garab istaagtaan oo gabadhaas aad kafaala qaadano oo sidii daryeelkeeda caafimaad iyo sidii ay hooy ay u siin lahayn xataa hadii xaalkeeda caafimaad dii loo maaro waayo ilaahay ha caafiye inaynu u dhisno hooy ay ku noolaato ayaan ummadda muslimiinta aan ugu baaqaya inuu ka soo qayb qaato lambarka shashada ku qoran waa lambarkooda iyagaad kala soo xiriireysaan warbixinaha aad ka helaysaan ciddii kale ee shakhsi ahaan iyo warbixin iga rabtaana lambarkayga iyo khadka barnaamij beejkaas aan leeyahay bay igala soo xiriiri kartaa laakiin lambarka lagala hadlayo ee lagala xiriirayo ee ciddii wax taraysa ee awoodaysa waa lambarka shashada ku qoran ee qoyska ayaa iyaga iska leh marka toos inay uga soo xiriiraan baan insha Allah aan rajaynayaa waxaan ku baranay inanta awrada anaa dhalay muddo fara badan ee aniga wixii igu heliyaba na dhibays wax dilmaha ahaato carar ha ahaato ilaahay waxaan waa u samray ee walaalayaal wixii islaama waa inaad noo ogeysiisaan dhib baanu ku qabnaa iyana way dhiban tahay sidaa wiilku idiin sheegay hanti anoo igu dhisana waan waayay yana sidii bay ii dhibaysaa wixii aadna tari kartaan walaalayaal idinna alla sadaqad idinka dhigo inaadna tartaan hadday dhakhtar tahay hadday hooy tahay hadday masruuf tahay walaalayaal tasaasaanu idinka barin idinna allah idinka jasaay mariyo annana ilaahay haddii cimri u laaban yahay allaha caafiyo